mulkiilaha shirkadda Maandeeq ahna wadaha diyaaradda Maandeeq Kabtan Amiin ayaa kulan la qaatay maamulka degmada iyo ururada bulshada rayidka ah ee degmada Garbaharey. Kulankan oo looga hadlayay sidii dhammaan degmooyinka gobolka Gedo loogu samayn lahaa duulimaad joogto ah iyo sidii looga gudbi lahaa kala xirxirnaanta gobolka ka jirto. Mana aha markii ugu horeysay ee uu Kabtan Amiin kulan noocan oo kala la qaato maamulka iyo bulshada gobolka Gedo. Waxaana ugu horeyn hadalka daafuray taliyihii hore ee amniga Cabdixakiin Maxamed Cumar Aana Koosto. arna saaka meeshan aan soo imaanay aan rabnaa inaan ka daafuran isku socod gobolka oo diyaaradaha iyo waqtigii ay awal ahaan jirtay in qofkii rabo inuu gobolka meel kamid ah uu aado uu meel kale dadka ka soo raaci jiray. waxaana ka soo shaqeeyay shirkadda Maandeeq la yiraahdo ninkii la yiraahdo Kabtan Amiin iyo muzamin ninka la socdo saaxiibkiisa. Sidoo kale waxaa hadalka qaatay Kabtan Amiin isagoona ka warbixiyay qaabka ay uga howlgalayaan iyo waxa ay ka shirkad ahaan bulshada ku soo kordhin doonaan. anigu magacaygu waa Cusmaan Cabaas Amiin waxaan ahay nin Soomaaliyeed oo degmada Wajeer Kenya ka yimid. inta badan dadku waxay i yaqaanaan Kabtan Amiin. taana waxa dheer waxaan ahay milkiilaha shirkadda Maandeeq isla markaana ah bayloodka diyaaradda ka xeynay. taa ka hore introduction-kayga aniga markuu intaa yahay waxaan salaamayaa odayaasha haweenka maamulka dhammaan. mowqifkanaga wuxuu yahay in aan sambar dheer ugu sheegnay hadda ka hore isku xirna gobolka Gedo isku socod ahaan siba maalinta Axadda ah doolow ka bilaabano Garbaharey soo marno baar dheer ka soo laabano Garbaharey nimaano doolowna aan ku laaban si dadkii degmada isku socdaan. ugu horeyn falaadada markay bilaabanayaan waa iska dhib badan yihiin oo qarashaadkeeda iska fara badan. laakiin ma maleynayo in aan feerka qaal ka dhigi doono. malaha waxaan isleenahay $80 ilaa $70 wixii u dhaxeeyo koodii ku bilaabanaya marka ugu badato. aakhirkana waxaan gaarsiinaynaa in gawaarida BLT oo dadku ku rafaadeen diyaaradda laga doormido oo qof walba jeebkiisa maamulo. ugu dambeyntii ayaa waxaa kulanka soo afmeeray gudoomiye ku-xigeenka degmada Garbaharey mudane Aadan Siraad Maxamuud. waxaan rabaa inaan salaamo bulshada qaybaheeda kala gedisan sida odayaasha guurtiga ururka haweenka heer gobol iyo heer degmo ururka dhalinyarada bahada saxaafadda saaxiibadan muxuu ahaayay maanta barnaamijkan horumarka leh macnaha noo soo keenay oo maaragtay nooga faa'iideeyay oo shirkadda Maandeeq saraakiisha ciidanka iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kala gedisan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaanka dib waxaan u malayn maanta shucuurta reer Garbaharey mid la soo koobi kara maahan. waa wax maaragtay hiridiile iyo maaragtay farxad aad u balaaran leh in maxaan ku raahday dhowr iyo 20 sano kadib oo maaragtay qalalaaso iyo dagaal iyo argagixiso iyo mushkilada kala gedisan aan soo marnay ay saaxiibadana oo walaalahana oo Soomaali ay maanta noogu deeqaan in maaragtay muxuu ahay isu socodkii gobolka uu noqdo mid sida tagaasida oo kala ah sida kale ay noogu deeqaan hooyada umulayso oo xanuunsanayso aabaha dhibaataysan in lagu qaadi doono si free oo bilaash ah. waa wax maaragtay horumar ah oo wax Allah subhanahu wa ta'ala loogu mahadiyo oo wax ayagana aan in badan ku xasuusan doona hadii aanu nahay reer Garbaharey. Warsame Xaaji